بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم mahadska le tabaaraka wa tacaala oo mudan isagaan ku shukrinayna nicamkiisa aan la tira koobi karin faraha badan Allah tabaaraka wa tacaala oo ina abuuray isagaa dunyada keenay adduunyadan isagaa dhisay waxa aynu dhexdeeda ku noolahay een u baahanahay isagaa inoo dhigay kadibna waa ina dili doonaa waqti baynu leenahay kadibna wuu ina soo saari doonaa oo ruuxul baabaalkiisa iyo xisaabtiisa la marin doonaa sida Ilaahay quraanka meelo badan oo kamid ah inoo sheegay maraaxisha kala duwan ee marayno ilaa ama ruuxu jannada ku dhamaado uu jannada galo ama wal ciyaadu billahi naarta xaggeeda uu xaalkiisu ku dhamaado socdaal iyo safar dheer baynu ku jirnaa socdaalka iyo safarkaasina wuxuu u baahan yahay sahay Ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu ina abuuray adoomadiisa inta uu doortay buu inagu daray Ilaahay doorashadiisana waxa lagu gartaa iyo inuu ku jecel yahay xoolana laguma garto kursi iyo jagana laguma garto jah iyo caruurna laguma garto balse waxa lagu gartaa in Ilaahay ku jecel yahay ku doortay inuu Allah tabaaraka wa tacaala uu ka dhigo ruux diin leh muslim ah oo alla yaqaana oo dariiqa Ilaahay ku toosan inuu Ilaahay ka dhigo tabaaraka wa tacaala Allah hadduu ina abuuray wuxuu inoo abuuray ujeedo muhiim ah oo la doonayo inaynu xaqiijino ujeedadaasina waxa weeye midoo Ilaahay ku sheegay aayadda quraanka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun insiga iyo jinniga umaanan abuurin buu alla yiri inay caabudaan mooyee ma uriidu minhum min rizqin wama uriidu an yut'imun Ilaahay rizqina gama rabo inaan qoodinana inooma abuurin isaga ayaa aqoodkana bixiya adoomadiisana irsaaqa inooma baahna laakiin inaga u baahan wuxuu inoo abuuray inaan caabudno oo aan isaga raali gelintiisa ku dadaalo liibaanteennuna waxay ku jirtaa inaynu xaqiijino ujeedadii laynoo abuuray mar walba ruuxu uu ku dadaalo inuu Ilaahay cibaadadiisa xaqiijiyo wuxuu noqonayaa ruux adduunyo aakhiraba ku liibaana ruuxu wuxuu noqonayaa nolol macaan oo qiimo badan adduunka ku noolaada aakhirana mid ka sii fiican ku hela sida Ilaahay quraanka kariimka inoo sheegay man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ruuxi amal wanaagsan oo Ilaahay jecel yahay sameeya asagoo rumaysan oo mu'mina alla wuxuu leeyahay waxaan nooleynaynaa nolol wanaagsan aakhirana wuxuu sameeyay waxa ugu fiican baa lagu abaalmarinayaa marka adduunkana waa liibaanay aakhirana wuu liibaanay maxay ku timaadaa iimaan iyo amal saalix ujeedadii lagu abuuray inaad xaqiijiso noloshaada inay noqoto hadafkii ujeedadaad ka leedahay nolosha inay noqoto rabbiga raali gali alla muxuu ku diray muxuu ka rabaa maxaad ku liibaani muxuu xuquuq kugu leeyahay arintaasi inay nolosheenu ay halkaasi wajiga saartaa loo baahan yahay oo aynaan khaldamin inaynu ku dadaalo waajibaadka Ilaahay ina saaray waajib wuxuu ka saaran yahay rabbiga xaqiisa inaad gudato adoontiisii baa tahay isaga ku abuurtay isaga ku irsaaqaya isaga caafimaad ku siiyay isaga caruurta ku siiyay isaga ku dili doona
isaga ku soo nooleyn doona isaga ku abaal marin doona allaha tabaaraka wa tacaala gacanta kugu haya oo aadan awaamirtiisa kowniga khilaafi karin allaha tabaaraka wa tacaala xaqiisa inaad gudato xaqu muxuu yahay ugu leeyahay nabigeena qeexay sallallahu alayhi wa alihi wasallam atadruna ma atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah haqqu Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an abu nabi sallallahu alayhi wasallam xaqa alla adoomadiisa ku leeyahay waa inay caabudaan keligii oo inay cibaadadiisa cidna la wadaajin inay keligii ku xirmaan keligii baryaan keligii u tukadaan keligii kaalmo weydiistaan keligii tala saartaan keligii u khushuucaan keligii ka cabsadaan inay keligii caabudaan ayaa waxay tahay ujeedada ilaahay u abuuray tabaaraka wa tacaala mar walba ruuxu ujeedada iyo xaqa ilaahay u xaqiijiyana ilaahay agtii sharaf buu ku yeelanayaa adoonnimadu marna waa dullinimo marna waa sharaf inaad addoon ilaahay abuurtay addoon u noqoto waa dullinimo inaad allihii ku abuurtay addoon u noqotona waa sharaf saas daraaddeed baa nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu alla ammaanayo wuxuu ku ammaanaa addoonnimo laanna ilaahay keligii buu addoon u ahaa makhluuq kaloo addoonsaday ma jiro adiga laakiin haddii makhluuqaadkaad addoon u noqoto boqor baa ku addoonsaday madaxweynea ku addoonsaday wadaad baa ku addoonsadood amarkiisa yeeshay geed baa ku addoonsaday naftaadiiyo shahwadaadaa ku addoonsatay shaydaan baa ku addoonsaday adduunyadana ku addoonsatay kulligood way addoonsadaan bini aadamka kulli way addoonsadaan sida nabigeenu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam tacisa cabdu dinaar wa dirham ruux baa shilinka iyo xoolaha addoon u ah ruux baa shaytaanka addoon u ah ruux baa kursiga addoon u ah bini aadamkii qaar badani iyagaa is addoonsanaya ruuxa waxaasoo dhan marka ka xorooba oo isagii allihii aan loo dhaxaynin oo alle keligii caabudaya wixii alla ka soo hadhayna u arka addoommo inay yihiin sharaf waaye xornimo waaye karaamo waaye inaad marka xaqiijino ilaahay cibaadadiisa tawxiidka barashada diinta muxuu ahay gudashada waajibaadka salaada ugu horeyso haddaad xoolo leedahay sakada ka bixiso soonka bisha ramadaan muxuu ahay haddii aada xoolo leedahay sidoo kale inaad soo xajido tiirarka islaamka inaad istaajiso oo diintaadu ay ku dhisan tahay diinta waajibaadkeeda inaad qaadato sidii shalay baan sheegaynay sidoo kale xuquuqda alle markaad gudato inaad xuquuqda addoommadana gudato addoommada xuquuq bay leeyihiin oo isku leeyihiin yani waxa weeye haddii waalidku xaq buu leeyahay labada ku dhashay xaq bay leeyihiin bal xaqa ay labada waalid leeyihiin xaqa ilaahay baa lagu xijiyaa qur-aanka kariimka ah waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana labada waalid in ixsaan loo sameeyo oo baari loo noqdo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku xijiyaa xaqiisa oo xuquuqda ugu weyn marka labadii waalid baa xaq leh in la ilaaliyo way xaqooda waxaa xaq leh labadii gurigu ka dhexeeya isqabay ninku xuquuq buu ku leeyahay xaaskiisa xaaskuna xuquuq bay leedahay waa tii shalay aynu muxaadarada kaga hadlaynay iyadana waxaa xaq leh dariskaaga oo nabigu sal lla alay wasalam tilmaamay ruuxii aan dariskiisu sharkiisa iyo dhibkiisa ka nabadgelin inuu ahlu naar yahay nabiga waxaa loo sheegay sal lla alay wasalam haweeney aada loo ammaanay oo cibaado badan salaad badan soom badan lagu ammaanay laakiin dariska u daran nabigu wuxu waa ahlu naar mid kaleetana salaad badan iyo soom badan laguma sheegin laakiin dariskay u roon tahay waa ahlu janna buu nabigu sal lla alay wasalam marka dariskaaga in ay dhibkaaga ka nabadgalaan mujtamaca aada la nooshahay inaad anfacdo mooyaane inaad dhibkaaga ka ceshato
mujtamaca anfac khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa u khayr badan ruuxa bini aadamka iyo makhluuqa ugu nafci badan khalqigan anfac keliyata bini aadamka mehe noolahoo dhan inaad anfici karta isku day leanna waxa way diinteennu waa diin sideedaba ku salaysan bini aadamka in la hagaajiyo naftiisana la hagaajiyo khalqigana loo hagaajiyo ilaah heer wuxuu gaadhay nabigu sal alla alay wasalam uu yidhaahdo haweeney jidhkeeda xumaan ku samayn jirtoo sinaysan jirtay ayaa waxay soo martay ey ooman oo ceel korkiisa jooga oo dacda yacni qoyaanka ceelka bannaankiisa ah leefleefayo ceelkii bay gashay biyay usoo dhaamisay way waraabisay ilaahay baa uga shukriyey uguna dambi dhaafay walu fiirsada waa naag zaaniyada oo dunuubta midda ugu xun ku jirtay ay waraabisay buu ilaahay ugu dambi dhaafay haweeneyna bisad ay xidhay bay naar ku gashay sida nabigu sheegay sal alla alay wasalam bisad bay xidhay bisadii wax mayna siinin mana ayna sii daynin si ay wax u raadsato gaajay u dhimatay ilaahay baa u cadaabay haddii xayawaanaadkii ixsaan haddii loo sameeyana janno lagu galayo haddii dhibaato loo geystana naar lagu galayo bini aadamkii ka waran marka wax weeye makhluuqa iyo khalqiga inaad wanaag u samayso dariskaaga u roonaato yani mujtamaca aada la nooshahay wanaaggaaga iyo inay gaadhaan xumaantaadana aad ka ceshato yani waxa ugu yaree nabigu tilmaamay sal alla alay wasalam waxa weeye haddaadan waxba taraynin dhibkaaga ha laga nabadgalo dhibkaaga ha laga nabadgalo taasaa sadaqo ku ah naftaadaad u sadaqaynaysaa adaa isku sadaqaysanaya marka waa inaad noqoto ruux bini aadamka khalqigana u roon xuquuqda rabbigiina gudanaya nabigeenu siduu yidhi sal alla alay wasalam ittaqi llaha xayumaa kunta wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan ilaahay ka baq meelaad joogtaba xaqa ilaahay gudo haddii aad qaldanto xaqii ilaahay aada meel kaga dhacdo ama xuquuqdii aadamaha iyo makhluuqa aada meel kaga dhacdana wanaag samee oo ilaahay usoo noqo oo khaladkii sax makhluuqa iyo inta ilaahay abuurtayna wanaag kula dhaqan waa mabaadi nolosheenna haddaynu qaadanno wax badan runtii wanaag badan kusoo kordhayo sidaas daraaddeed ilaahay xaqiisana ku dadaala xuquuqda aadamaha iska ilaaliya xuquuqda aadamaha haddaad gasho oo dulmi aada gasho oo aada dadka afkaaga iyo adinkaaga ka nabadgeli waayaan waxaad ogaanaysaa waxaa lagula sugayaa waa maxkamadda ilaahay bal iskaba dhaafe waxaa laga yaabaa in cuquubadu ayna aakharo u daahina soo degdegto saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal alla alay wasalam laba dembi nafsigood iyo cuquubadoodu ma daahdo adduunyaday usoo degdegtaa aakharana kayd wey iyadoo aakharo lagu kaydinayo yaa haddana adduunka cuquubadu usoo degdegaysaa labadaa dembi nabigu wuxu uhi sal alla alay wasalam albagyu wa qatiicatu raxim gardarrada iyo dadkoo la maago afkaaga iyo adinkaaga inaad dadka dhibaatayso ka gardaraato ku xadgudubto ya aakharo lagula sugi maayo intaadan dhimanin ayaad midhaheeda goosani talo ma caafimaadkaagaa la geli doonaa ma caruurtaa lagaa geli doonaa ma diintaa lagaa geli doonaa xaggee lagaa geli doonaa allahu aclam ilaahay baa garanaya qaabkuu kaaga orgoosanayo laakiin markaad gardarradaadu badato waxaad ogaanaysaa waa lagugu soo maqan yahay dad badan baa dhiban laakiin meel laga gaadhay aan garanaynin waxaad ogaataa ilaahay agtiisa wax lumaya ma jiro way soo degdegi marka gardarrada iyo xadgudubka qodobka labaadna waxa way qaraabogoysinimada waa isagana aan daahin haddaad qaraabogoys tahay oo ehelkaagii iyo xigtadaadii aada goyso oo waxaad ku dhaanto aadan wax ka siinin oodan xidhiidhinin ayadana cuquubadeedu ma daahdo way soo degdegi ya keligii noole haddaad noqoto keligii cune oo aan qaraabiyo ehel aqoonin ayadana way soo degdegi sidaas daraaddeed
waa inaan gardarada iska ilaalin. waxyaalaha la ii sheegay waxaa ka mid ah magaaladan Eldoret in dumarka dhexdooda marmarka qaarkood xasaasiyaad intay maraan in dawladda la isku dacweeyo oo booliiska la soo isticmaalo oo la isxidho oo dhici karta in la ismasaafuriyo oo dhibaato la isu geysto. waxaad ogaanaysaa allah tabaaraka wa tacaala kownkan abuurtay ilbidhiqsi wax kaaga qaban karaya waa kaa koreeya. haddaad maanta fakatana berri fakan maysa, haddaad maanta nabad gashana berri nabadgeli maysa. ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa nabadgeli, ilaahay makhluuqiisa nabadgeli. haddaadan waxba ku biirinin waxba ku taraynin dadku hakaa nabad galaan. afkaaga iyo adinkaaga xanta ka daa, cayda ka daa, aflagaadada ka daa, jaajuusnimada ka daa, dabagalka ka daa, xadgudubka ka daa. ilaahay baa addoommadiisa ilaashanaya. khaasatan dadkan aada dhibka u geysanaysa hadday dad muslimiin oo tukanaya yihiin. soo ma ogid dadka mu'miniinta ilaahay baa difaaca. ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. dadka mu'miniinta ilaahay baa difaacooda u taagan. adiga marka isku taataabo dad ilaahay ilaashanayo. nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam ruuxii salaada subax tukada fa huwa fii dimmati illah. salaad subax ruux muslim oo tukaday rag iyo dumar ku doonay ha ahaado ilaahay magantiisa waay. ilaahay yuusan magantiisa idinka dalbin. adiga ruuxa maganta ku ah, soomaalida waa la yaqaanaa dhaqankeeni, ruuxa maganta u hee qabiilka ku dhex jira magantee dhex degan haddii loo gacan dhaafo waa laisku baabi'i jira. maxaa umalaynaysaa magan ilaahay inaad u gacan dhaafto? markaad ilaahay magantiisa u gacan dhaafto ka war. dadka muuminiinta ilaahay u cibaadaysanaya tukanaya ilaahay rumaysan waa dad awliye ilaahay waay. sida ilahay qur-aanka kariimka inoogu sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. yayihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. ruux kastoo ilaahay rumaysan allana ka baqa oo xuquuqda ilaahay guta waa weli ilaahay. weli ilaahay markaad isku taabatana allah wuxuu yidhi man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb. weli awliyadeyda ka mid a waa muumin cibaadaysta waay. ruuxii colaad u qaada, la dagaalama, dhib u geysta, dagaal baan ku iclaamiyey ha ku talagalo. ilahay miyaad iska celin kartaa? ya war ilahay yaa u baax dhigi kara dagaalkiisa? ma jiro. aynu tartiibsanno, addoommada aan nabadgelino, innagu aan isnabadgelino, aan kala nabadgalno, khalqiga aan nabadgelino, dadka inala nool aynu wanaag iyo ixsaan iyo samafal aynu u samayno, wixii dhibaatadeenna aan ka ceshanno. arrintaasi waa arrin laga maarmaan ah. qodobka kale doonayo inaadan xusuusiyo wuxuu yahay markay haweenayda gabadha muslimadda ah waa inay dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaanba ka duwan tahay midda gaasha ah. muslim baan ahay maxay tahay macnuhooda? muslimad baan tahay ayaan ahay macnaheedu muxuu yahay? hoggaansanaan ahay waaye. alislaam huwa alistislaam walinqiyaad waa hoggaansan ilaahay loo hoggaansamo. waxaa ka mid a waxyaalaha loo baahan yahay gabadha muslimadda waxaa la rabaa in ay tahay ruux, waxaa loo baahan yahay inay noqoto ruux shareecadeeda iyo diinteeda ku toosan. wixii ilaahay kaa reebay ka fogow, dhowrsoonow. nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa jirtay saxaabada ballan buu la galay, ballan uu gacan qaadi jiray. dadkii ballanta ula galay waxaa ka mid ahaa dumarka. fi suurati almumtaxina aakhirkeeda ayaa ilaahay wuxuu ku sheegay qodobadii dumarka uu nebigu kula galay ballanta. ida jaaءaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shay-an. mu'minaadku hadday ku yimaadaan dumarkii ilaahay rumeeyey, nebi maxamedo hadday ku yimaadaan ayagoo ballan iyo beeca kugula galaya inaynan ilaahay waxba la wadaajinin, shirki iyo sixir iyo khuraafaad iyo ilaahay cid aan ahayn in la aado, wax laga raadsado, in aynan samaynaynin hadday kuula yimaadaan
walaa yasriqna inayna waxadaynin tuugnimada inay iska daynayaan walaa yazniina inaysan sinaysanaynin oo jidhkooda iyo sharafkooda ilaalinayaan hadday kuula yimaadaan inay ballan kugula galaan walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna been abuurad cirdigooda iyo sharafkooda inaysan meel kaga dhacaynin hadday kuula yimaadaan inay beecay iyo ballan kugula galaan walaa yacsiinaka fii macruufin wax wanaagana ood amartayna inayna kugu caasinaynin oo kugu khilaafaynin arrimaha hadday kuula yimaadaan fabaayichunna ballankaa la gal baa la yidhi dumarka wastakfir lahunna allah ilaahayna dembi dhaaf u weydii baa la nabiga sal alla alay wasalam marka qodobada asaasigaa ku waawaay ruuxu tawxiid shirkiga inuu ka fogaado gabadha muslimadda inay jidhkeeda ilaaliso xoolaha ay cunayso inay xaaraanta ka ilaaliso tuugnimada iyo khiyaanada iyo wixii la mid ah cifadeeda iyo sharafkeeda inaad ilaaliso waa kaad aragteen fi suurati nuur iyo suuratu laxzaab sida loo ilaaliyey gabdhaha muslimaadka sharafkooda dhowrsoonaanta laga soo bilaabo guriga iyo aadaabtiisii marka la galayo salaanta guriga inaan laysku dhex tuurin intaad dhex istaagto hoodii inaadan ka bilaabin guriga kor soo gargaraacdo soo salaanto markaad soo gelaysa aadaabtii guriga lagu soo geli lahaa kadibna allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka hadlay indhaha in la laabo raggii baa lala hadlay dumarkii baa lala hadlay iska dhaaf zinada iyo xumaantu inay dhacdeen xataa irid kale oo kasta oo lagu gaari karo yaa la xidhay indhihii baa la xidhay waxaa la indhaha laaba xumaanta ka laaba astur baa la faray dumarkii inay xijaabka iyo asturka qaataan ziinadoodii iyo quruxdooda inayna banaanka dhigin walaa yubdiina ziinatahunna inayna quruxdooda banaanka geynin ama xubnaha jidhku meeluhu u quruxsan yahay ha noqoto ama ziinada iyo quruxda jidhka la saara ha noqoto dahabka indhakuulka waxyaalaha la midka ah yani wax way inaysan banaanka u bixinin walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha waa laga hadlay waa lagu dheeraaday fi suurati alaxzaab sidoo kaleeto waa lagu dheeraaday intaa waxaa la ilaalinayaa cifada iyo dhowrsoonaanta gabadha muslimadda ah karaamadaada iyo sharaftaadu ilaahay agtiisa aad ku leedo waa inaad dhowrsoon tahay marba haddaad wasakhowdo oo jidhkaagu wasakhowdo sharaftaada ku ciyaarto ood gogashaada wasakhayso ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala hawl culus baa taalla marka waa midda keentay in la yidhaahdo guryahana ha la ilaaliyo guurka loo baneeyey oo la yidhi ha la fududeeyo muxuu ahaayey loo xarimay rag haweeney iyo nin ajnabi kalaa inay guri isugu isla cidlaystaan leanna shaydaan baa saddexeeya waa midda loo diiday safarka maxram la-aanta ah waa midda loo diiday rag iyo dumarku inay isku dhex darmadaan waxaasoo dhan shareecadeenu waxay ilaalinaysaa wax qiimo badan ku fadhiyo cifad iyo dhowrsoonaanta arrintaa marka waa muhim xijaabka ayaa waxyaalaha muhimka ah ka mid ah oo ilaahay qur-aanka kariimka inugu faray oo aayado qur-aana ku cad yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina asturkan iyo xijaabkani wax wadaad la yimid ma ah wax wadaad keenay ma ah waa wax rabbi amray rasuulkiisa sal alay wasalam ina amray aayaadkaasi markay soo degeen xijaabka ka hadlaya dumarku saxaabadu markii hore lama farin mayna xijaabnayn markii hore laakiin aayadaha xijaabku markay soo degeen oo ay aayadihii guryahooda ugu tageen subaxdii gabadhaan xijaabnayn kama soo bixin muxuu ahay guryaha kama soo bixin say durbo u amar qaadan jireen xijaabku marka waxa waa astur waa astaan iyo calaamo ku tusaysa qiimo badan ku fadhida waa sidaas daraaddeed bay gaaladu maanta dagaal adag kula jiraan xijaabka dagaal adag miyaad aragtay faransiiska iyo dawladahan muxuu ahay reer galbeedka gabadh xijaabkeed bay dagaal kula jiraan sababto wax bay xijaabku wuxuu ka turjumayaa macno weyn xijaabku wuxuu ka turjumayaa dhowrsoonaan xijaabku wuxuu ka turjumayaa mabaadi' ka dambaysuu ka turjumaya mara keliya maaha saas daraaddeed shaydaanka cadow la ah shayaadiinta insiga cadow la ah inkasta oo xumaanta jecel ayaa xijaabka cadow la ah inta wanaagga jecel allah tabaaraka wa tacaala iyo inta wanaagga jecelna way jecel yihiin asturka iyo xijaabka iyo mujtamac dhowrsoon iyo guri dhowrsoon iyo bulsho dhowrsoon iyo gabadh asturan iyo waa wax qiimo badan waa marka asturka ku dadaala asturka aada ugu dadaala xijaabkana ku dadaala
guryihiina markaad ka baxaysaana idinku xijaaban oo asturan ka baxa insha Allah ta'ala aad soo danaysanaysan biidnaahi tabaaraka wa ta'ala xijaabkaasi waa muhiim shuruudu leeyahay xijaabku hadda ku sii dheeraan mayno laakiin ilaahay wuxuu inagu barakeeyay gabdhaha Soomaalida ah dumarka Soomaaliya hooyooyinka xijaabkaasi qiimaha badan ee meel walba la marayno qurbaha iyo meel walba astaan inoo noqday ummado badanna inaga daydeen khayr Allah idin siiyo ku dadaala insha Allah ta'ala runtii muxuu ahaay dacwada iyo diinta faafinteedu waa waajib kamid ah waajibaadka loo baahay inaan isu taagno gabdhaha wax garanaya oo diinta yaqaana dumarka wax baraan gabdhaha diinta fahansan dumarka dacwadooda ha ka howlgalaan diinta la faafiyo dadka loo sheego midda lunsan la soo qabto midda qaawan la asturo midaan salaada tukan la yiraahdo lala saaxiibo la soo jiido waa wax qaaliya waa shaqadii ay anbiyadu qaban jireen ilaahay hadduu jiro shaqo ka fiican midda iyada ah rusushu u dhiibi lahaa shaqada ugu qiimo badan oo adduunka laga qabto waa inaad ilaahay shaqaale u noqoto oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala diintiisa ka shaqeyso oo dadka gaarsiiso oo ummadda hanuuniso oo allihii abuurtay adoomadan aad ku soo xidho saas daraadeed ba Allah tabaaraka wa ta'ala shaqadaas wuxuu u diray mu'miniinta rag iyo dumarba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'miniinta ragga iyo dumarkuba ayaga isjecel waa walaalo way isxigaan maxay qabdaan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wanaagay faraan xumaantana waa reebaan shaqo ragga kaliya u taala maaha mujtamaca dumarka oo hadda ragga aad uga badan waxa la doonayaa inaad dhexdiina ay ka soo baxaan gabdho ducaad ah gabdho dadka khayrka bara gabdho khayrka guriyaha khayrka ugu yeedha gabdhaha wax islaaxiya wayna jiraan kulliga waxa la doonayaa inaynu hawshaasi isu kaashano oo islaaxa isu kaashano waad garanaysaan dowrkii iyo kaalintii aad ku lahayn jirteen mujtamacii hore ciddii ugu horeysay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam markii malakul jibriil u yimid oo aayadihii ugu horeeyay quraanka lagu soo dejiyay iqra bismi rabbika alladhi khalaq aayadaha ugu horeeyay markay ku soo degeen ciddii nabiga garab istaagtay ahayd waxa ugu horeysay cid garab istaagto nabiga rumaysa khadiija u horeysay laana xadiidka bukhariga sida ka muuqata cid kale to nabigu u tagay ma jirin markii malakul jibriil u yimid oo la yara ciijiyay oo la yara camajuujiyay asagoo ordayo nabigu soo baxay sallallahu alayhi wasallam waa kii khadiija ka soo duldhacay ay yiri zamiluni khadiija naftayda aan u baqay idada soo nabigu sallallahu alayhi wasallam argagaxsan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markaas khadiija yaani wax way daday kadibna maxaa dhacay bay tiri warkii buu u sheegay way dajisay marka waxay ku tiri maya kalla wallah la yukhzika allah abada ilaahi marna ku hoojin maayo maxay yeelay wanaagiis akhlaaqdiisa dhaqankiisa ayay ka qaadato tiri marna ilaahi ku dayici maayo kuna hoojin maayo inta mayna ku daynina way ka xaysay nin oday ahaayo ilmaadeer ay ahaayeen waraqa la dhigi jiray u geysay waxay tiri bal ninka wiilkan adeerka aad u tahay dhageyso warkiisa qisadu way dheerayde gabadhii ugu horeysay nabiga rumaysay bay ahayd rumayn kaliya inuu isgarab taagtay si u garab taagneed nabiga sallallahu alayhi wasallam ku geeriyood sanadka ay dhimatayna waa sanadka loo yaqaan aamul xusniga waa sanadkii murugta culays badan baa nabiga soo foolay sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay garab bay u ahayd gunna way u ahayd salka nabigu ku fadhiyay dowrka ilaahay marka dumarku dowr muhiim iyo kaalin muhiim ay ku lahaayeen diintan ilaa nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidoo sahih bukhari ku yaala rasuulku sallallahu alayhi wasallam malakul jibriil baa u yimid wuxuu ku yiri maxamedow waxaan wadaa salaam khadiija igu salaan rabbigeed aan ka wadana iga gaarsii salaan rabbi ka socod oo khadiija ku socota gaarsii anigana igu salaan waxa kale oo la socotay waxaadna ugu bishaaraysaa guri jannada ku yaala oo isagoo dhan luul ka dhisan oo aan buuq lahayn oo aan qaylo lahayn oo aan dhib iyo rafaad lahayn nabigu sallallahu alayhi wasallam khadiija u sheegay khadiijay malakul jibriil baa ku salaamaya salaan rabbina waa ku wada markaas waxay tiri ya rasuulullah inna allah huwa as-salam wa alayka wa ala jibriil as-salam bal su'aasha aad isu weydiiyay
والروح كلية انت أحاديث النبي كسو عرورتي انت انك أركي وصلان ربي أو صمد تضبط السما كركوضة كتمين ملك الجبريل لو سوليبا أوسيدو صلان تاسي لو كياني واي وخديجة صوت معايا هيد دوركي يا كالنتي أي كل هيد دعوة إيا دينتا اسكرب تاقيد مركا بوسكاس بوسكي عايشة بوسكي أم سلمة أم سليم صحابياتكي نبي قرب استاقي صلى الله عليه وسلم ومدن كلها أبالك وين كلها دور كاسقاتا إن شاء الله تعالى ودعوذي خير كمجتمع نحديث هالوقوفها فيه وصلحي هشيسين تكشقية وقريها خلافكو قليو خلافكو ذا إنا ديشيسان اسكو ضياء انت بدن دمركو ميد مركي أي نينك هذا اسكو دعان ولا لصفتا وانا لسيلو قويا يا ولا سيلو قويا بلا يلوسي أخريا سيدا صحدا وحوة إلا ديشيو قول لي إذا ناقوريها اسكدو منين ناو خلافكو اسكتشرا يا لبدي ودا جوجتبا waa isku dhacaan laakiin wali isu tanaazulaa la tuso maxaa ka dhalan kara hadii gurigeena burburo yani wax way dajin bay u baahan tahay guriyaha islaaxiya ya ayuha alladina aamanu ittaqullah wa aslihu dhata baynikum yani wax weeyaan yani in aan dhexdeena islaaxino dad madda dhexdeeda la islaaxiyo midka jaahilka wax la baro midda lunsan ee shaytaanku qaatay laga soo rido ya dugsiyada lagu soo xiro culimada lagu soo xiro nolosheeda la hagaajiyo aad bay muhiim u tahay adallu ala alkhayr ka fa'ilihi ruuxa dadka khayrka tusay ka sameeyay buu la mid yahay la yahdi Allah bika rajulan wahidan khayru laka min humr na'am in ilahi hal ruuxa sabab kaaga dhiga hanuunka adiga aad hanuunis oo hanuunkiisa sabab kaaga dhigo adduunka xoolaha yaala qurquruxda badan ee dhalaalaya kaaga fiicanta geela midkiisa cascas ee quruxda badan ee aadka loo jeclaa waxaa ka qiimo badan hal ruuxa inaad ku guulaysato hanuunkiisa oo deed adigu sabab u noqoto marka inaga dhexdeena ka mujtamac muslim ahaan Soomaali ahaan waxa la doonayaa intaynu dhaafno inaynu u gudubno mujtamacan aan ku dhexnoo le gaalada ah in iimaanka helin tawxiidka helin inaynu isku dayno inaan soo islaamino diinta soo gelino soo islaaxino khayrka ku soo biirino si aan uga badbaadino mustaqbal madow oo inta gaalada dhan sugaya marka Allah idin barakeeyo ilaahay xuquuqdiisana aan ku dadaalo xuquuqda aadamahana insha Allah ta'ala dhaxdeena iyo dadka kale dariska la nahayba aynu ka dadaalo biidilaahi tabaaraka wa ta'ala dad gaala iyo qoysas gaala iyo mujtamac gaala baad ku dhaxnooshihiin dhaqanka iyo akhlaaqda wanaajiya yani mar walba oo dhaqankiina iyo akhlaaqdiina wanaajisaan dacwo way dadkaas waa iska soo ilmo islaamay diinta jeclaanayaan yani wax way in badan oo kamida diintu waxay ku faaftay akhlaaq wanaagsan marka akhlaaqda wanaajiya dhaxdiinana wanaajiya ummadaha idin la nool insha Allah ta'ala dhaqanka u wanaajiya say sabab ugu noqotaan inay soo islaamaan oo ilaahay tabaaraka ta'ala cadaab inay ka badbaadaan sabab idin ka dhigo tawfiiqda Allah ina waafajiyo ilaahayna tabaaraka ta'ala kuwa saalixiina oo muslixiina hay naga dhigo saalihaad muslihada إلهي تبارك وتعالى هذه كدقو خير كان الله نوافج دينته وناقنا الله نغسقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته